السلام عليكم كسو دبادة جنالكينا مالا كلونتا امتحانات الزفجوكا هذا وحدو باهانتا inaad raacdo habka ugu wanaagsan ee aad guul ugu gaari kartid inaad wixii aad soo baratay oo aad muraajaco ku samayso way adag tahay iyadoo mararka qaar ay dhacdo inuu qofku garan waayo halka uu wax ka bilaabayo haddaba halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa dhowr talaabo oo faa'iido ku leh akhriska horay u bilaabo imtixaanka waqtigiisa intaan la gaarin waa inuu qofku akhriska bilaabo si uu qofku cadaadiska soo saari lahaa markuu imtixaanku soo dhawaado waxaana aad u sii wanaagsan ay daraasad leedahay inuu qofku akhrisanayo markuu dhameeyo waxa uu akhrisanayo inuu waqti muraajaco uu sameeyo ka hor inta uu imtixaanku gelin akhriskaaga waqti geli si aad ugu faa'iideysato akhriska waqti la geliyaa waxay ka mid tahay istiraatiijiyada ugu wanaagsan oo qofku guul ka gaarayo shayga aad waqti badan gelisidna waxay u badan tahay inay mar walba xusuustiisa kula jirto waxaase ogaataa xeeladaha loo akhristo iyo wadada loo maro inay mahdooyin ku kala duwan yihiin adigu tijaabo iska qaad sida ugu wanaagsan oo akhriska guul ugu gaari kartid isla markaana wixii aad akhrisatay inaad ilaawin gacan ka geysanaya waxay khubaradu dhinaca waxbarashada ku tilmaamaan inay tahay tijaabadu qofka iska qaado macallin isu noqo qof kale inaad waxbarto waxay kaga baahan tahay inaad si weyn isugu diyaariso cashar kasta oo dadka kale bari lahayd haddaba aad muraajaco samaysay tijaabana aad iska qaaday maxaa xiga waxa aad daa sabuurada adigoo cid kale baraya wixii aad akhrisatay noqo qof fircoon taleefanka gacanta iska fogee taleefanka wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan marka dhanka wanaaga laga eego balse barnaamijyada baraha bulshada uu xiriirkoodu fududeeyo taleefanka gacanta inta badan waxay caqabad ku noqdaan akhriska qofka tijaabooyin horey loo sameeyay ayaa waxay sheegayaan markasta oo taleefanka aad waqti badan gelisid inuu hoos u dhacayo natiijada aad imtixaanka ka keenaysid isdaji oo wanaag ku fig khubarada cilmu nafsiga waxay ku talinayaan deganaantu inay kaalin weyn ku leedahay guusha qofku imtixaanka ka gaaro maalinta imtixaanka isku day inaad samaysid sida tan akhriso aayado quraan ah badina dambi dhaafka weydiisashada Allah subhanahu wa ta'ala samee jimicsi si aad u hesho firfircooni ka fogow hadalka badan ee ku hilmaamsiinaya waxaad xifdisay isu diyaari imtixaanka si guudna u kulmar maadada la galayo samayso waqti kugu filan aad ku gaarto goobta imtixaanka adigoo aan degdegin haysan waqti kugu filan ku kalsoonaaw naftaada adigoo imtixaanku yahay bandhig lagu qiimeynayo heerka aqooneed waxaan jeclaystay maanta inaan idin la wadaago mahadsanidin